Muuqaalkan soo socda waa mid waaqic ah oo ka hadlaya nolosha dhalinyarada ugu badan ee maanta ay ku nool yihiin. Haddii aad tahay carruur ama qof ka yar 18, fadlan ha isku daawanin muuqaalkan. Tani waa waqooyiga Florida, magaalo ku taala waana qisada wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Jacob. Jacob waxa uu ahaa nin asxaab fara badan leh waqtiga uu jaamacadda ka qalin jebinayay. Asxaabtiisa ugu dhow waxaa ka mid ahaa Brian, Alex, Fatima iyo wiil la yiraahdo Eden. Hase yeeshee, ninkan dhalinyarada ah wuu sii bedelayaa marba marka ka dambeysa. Waxaa haya wiilkan jacayl ku duqoobay oo yaraantiisii ilaa waagii iskuulka uu qabay gabar ay isku kalaas ahaayeen oo lagu magacaabo Ellie. Ellie way la garan weysay wiilkan jacaylkeeda. Waxa ay ku jirtaa fasax gaaban ayadii faamilkeeda ay isla qaadanayaan. Hase yeeshee, waxa uu ka codsaday Jacob in jacaylkooda iyo waqtiga guurkoodu uu soo dhawaaday. Hase yeeshee, gabadhan ayaa iyaduna aan markasta fahmin waxa ayna istiraahdaa Jacob ka dhaadhicintiisu waa wax ka badbadis ah, si caadiyan ah ayayna asxaabteeda ugu dhex jirtaa wiilkan iyada jecel. Hase yeeshee, isaga waran baa ku taagan. Markastana waxa uu ka fikirayaa inay reer yagleelaan labadoodu oo ay nolol dhistaan. Waayuhu waxay isla rogrogaanba. Nolosha Jacob mar qura ayay isbedeshay. Hadda wuu ka soo tegay halkii uu ku noolaa ee Florida, waxa uuna la joogaa reerkiisa oo degan Los Angeles. Aabihiis waa ganacsade ku nool nolol heer dhexaad ah. Walaashiis oo single mother ah, walaalkii ka weyn, cunug yar oo walaashii dhashay. Hooyadii iyo aabihii ay ka kooban yihiin qoyskoodu, waxaana ay degan yihiin guri magaalada ka yara durugsan. Sawa nolosha reer lacag leh. Jacob wali waxaad moodaa inaanay u ahayn. Farxad yar ayuu ka raadinayaa wiilka yar oo waqtigii aadka u yaraa abtigii ciyaarsiin jiray. Hase yeeshee, abtigii hore maba ahanba sida uu muddo yar u joogaba. Qofku waxa uu noqonayaa sidii wax ateenadu ka tagtay. Walaashiis ayaa indho duwan ku fiirinaysa, waxa ayna leedahay Jacob caadi ma tahay? Waa fiicanahay. Xogaa waxaad moodaa inuu ismoogeysiinayo, laakiin iyadoo dareensan tahay waxba dana uma gelayso. Noloshooda caadiga ayay iska wadanayaan faamilka. Wiilkii Jacob waxa uu go'aan ku gaaray in uu xaafadda ka tago oo u guuro guri uu kaligiis ku noolaado. Hooyadiina way u yeeshay, waxaanay tiri waqti wanaagsan soo qaado wiilkaygiyo. Ugu dambeyn, Jacob reerkiisa sida ayuu ku soo macsalaameeyay. Waxa uuna rabaa in uu aado gurigii uu ku iskaabuleen lahaa ee uu noloshiisa ku qaadan lahaa kuna nasan lahaa. Balan aragno. Let's go. Bye iyo bye. Waa la soo kala tagay. Jacob gaarigiisa yar ayuu soo qaatay. Waxa uu haatan ku wajahan yahay gurigii gaarka ahaa ee uu degi lahaa. Waxa uu soo galay nolol kale. Firaaq ayuu dareemayaa halkan, iyo mar kale inuu neecawda nolosha dib u dhadhamiyo. Moogeysiis alla xanuun badana marka ay noloshu ka cakiranto. Kelinimadu waa wax aad u daran. Marka aad keli noqotana, hubaal shaydaan ayaa wehelku noqonaya. Shaydaankii wehelka u noqday ayaa wiilka dhalinyarada ah markasta u sheekeeya. Waqtigu ma soconayo, saacaduna waxaabad isleedahay gadaal ayay u socotaa. Fikir ayuu ku qaataa waqtigiisa inta ugu badan. Gidaarada guriguna waxa ay noqdeen saaxiibada ugu dhow. Jacob buugaag ayuu marmar akhristaa, marmar filimaan ayuu daawadaa. Halkan madadaalo fiican wuu ku haystaa. Gitaar ayaa u yaala, marmar wuu iska heesaysaa. Laakiin malaha noloshu weli dhadhankii uu rabay. Noloshu dhadhankii uu rabay weli malahan. Wayelnimo way fiican tahay waaya arageede. Tantaan. Ninka dhalinyarada wax u sameeya ayuu leeyahay. Ellie ayaa dib u soo wacday akhbaar fiican. Jacaylkiisii ka tagtay ee Ellie ayaa dib u soo laabatay. Maxaa la qaban karaa markan?
waa mar midi calool ku tagtay. Jacob wuu isbedelay. Buugaagtiisii, aqoontiisii, waxbarashadiisii, dhammaan wixii oo dhan dib ayuu u laalaabay. Marmar muusig calaacal ah oo uu dhageysto. Jimka uu marmar aado. Qolkiisa yar uu ku dhex qaato nasiino yar. Iyo in uu ku biiray asxaabta balwadda leh ee isticmaasha balwadaha sunta ee aadka u khatarta leh sida marijuana ama xashiishka ayuu noqday Jacob. Ninka dhalinyarada ah ee kelinimada ku nool noloshiisu aad bay u adag tahay. Hase yeeshee looma baahna in shaydaanku uu kuu sheekeeyo. Markii xaaladan oo kale cakirnaanta ah aad dareento, ugu yaraan qof familkaaga ka mid ah xitaa la dagaal. Isfurfur. Caajiska iska saar. Marmar qaar haddii aad awoodo Isniinta iyo Khamiista soom. Banooni iska ciyaar. Isma dadaali. Laakiin ninkan wuxuu qaatay fikraddii ugu xumeyd oo ah fikraddii uu siiyey Ibliis oo ah in uu balwadda aadka u daran ee maskaxda gubta ee xashiishka iskuma dadaaliyo Jacob. Nolol kale ayuu galay. Xoogana waxa uu dareemay in uu ka nastay buuqii iyo stresskii iyo ka fakiritaankii maqnaanshaha Ellie. Ellie laftirkeeda waa ruux ka maqan yahay qofkii jeclaa ayaduna ay jecleed oo ay dib ka soo jeclaatay ayay baadigoob ugu jirtaa. Ileen horaha loo yiri waa kugu horeeyay ama kugu dambe. Ellie baadigoobkii siday ugu jirtay asxaabteeda kaashatay. Markii dambe familkiisa ayay u tagtay. Hooyadii Erika ayaa ku tiri Jacob waxa uu degan yahay meel halkaas oo magaalada ka baxsan. Gurigan lama furo. Kaliya wuxuu ka furaa 2 qofood oo ah ninka biisaha iyo ninka korontada. Xoogaa uu dhibsanayaa in qof u yimid. Talo ayuu noqon doonaa qofkan. Maalintii koowaad sida ayay ku dhaaftay. Maya maysan tagin. Irida ayay taagan tahay. Waxa ay samaysana mataqaana Ellie. Qaladkii hore u gashay ayaa halkan ka muuqda. Isna wuxuu iskaga dhigayaa guriga inaan la joogin. Korontadii iyo wixii dhan ayuu damiyay. Walaa dhibaato. Weligaa qof aad jeceshahay isna ku jecel ha adleenin waayo go'aan kasta ayuu gaari karaa. Xitaa wuu isdili karaa. Adiguna waxaa laga yaabaa in aad dhibaato isku geysato ama uu nafsigiisu kaa soo baxo. Ellie way fikiraysaa wax ay samaysana mataqaano. Tala ayaa ku cad markan. Si kastana oo ay ku baadigoobi karto Jacob waa mid ay ku qasban tahay. Markan waxay isticmaalaysaa plan B. Guriga ayay isku dayaysaa in ay dhinaca dambe ka soo gasho. Albaabka dambe ee specialka ayay ka soo gashay. Haddii ayba soo gashay wax kasta waa sidii ay rabtayna ma ahan. Jacob way aragtay laakiin Jacobkii hore ma ahan. Ooyin, qosol, farxad, calool xumo, dareemo isku dhex jira. Xageed aaday? Allabaaye, hoogaye, qararac. Waxyaabo ayaa isku dhex qasan meeshan. Anyway, Mr. Jacob waa uu ku qaatay saaxiibtii. Waxaana ugu dambeyn ay noqotay mid u soo laabata. Waa anigii waa la fadhiistay. Wax kasta iska ilo markan farxad ayaa u soo laabatay. Weligaa ha isku dhiibin nolosha. Never give up. The good days will come. Intaana aniga ayaa kuu raaciyay. Subscribe dheh barteena YouTube oo la soco muuqaalada dambe aan soo gelino page-keena Facebook. Mahadsan.